وعنا wanaagsan daawadayaal halkani waa barteena Somali Life Media ku soo dhawaada wararkii ugu waaweyn caalamka Soomaalida qodobada daawadoonteen xilligan idinkugu soo gudbi doona tabintan waxa qayb ka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo safar degdeg ah u aanbabaxaya dalka Turkiga iyo filla Soomaaliya oo shaaca ka qaada qorshaha la galaya safarka madaxweynaha ee dalkaasi dawladda Turkiga oo dejiso qorshe weyn oo Soomaaliya kaga faa'iideysa malaayiin dollar xilli kulan degdegana ugu yeeray Xasan Sheekh ujeedka safarka madaxweynaha iyo xogihii ugu dambeeyay xilliga uu baxayo kulamada iyo mas'uuliyiinta safarkaasi ku wehli doonta ayaanu halkan ku faahfaahin doonaa saaxiibayaal ee nagala qayb qaada baahinta muuqaalkan adigoo baraha kale ee bulshada ku sii sheer garaynayo alaaba halkan waxa idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka ee xilligaasi taagan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu aanbabaxa dalka Turkiga isaga iyo wafdi uu hogaaminayo halkaas oo casuumaad rasmi ah ku helay dhigiisa dalkaasi safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ku wehli doona xubno la filayo inay la kulmaan madaxda sare ee dawladda Turkiga oo ay kala hadli doonaan arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya oo isugu jira wasiiro safiiro xildhibaano ka tirsan labada gole taliyaal iyo mas'uuliyiin kale waa safarkii labaad oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dalka kaga aanbabaxaya tan kii ka horeeyay ayuuna ku aaday Imaaraadka oo muddo uu la karantiin la COVID-19 xogaha ay heshay Somali Life Media ayaa la sheegayaa in madaxweynaha uu kulan la qaadan doono dhigiisa arrimo muhiim u ahna uu kala hadli doono dawladda Turkiga ayaa fursado badan waayihii dambe ka lubeentay iyo doorashadii Soomaaliya ee lagu guda jiray waqtiga qaadatay waxay haatan u aragtaa meel ay ka soo nooleyn karto wafdiga Xasan Sheekh Maxamuud ayaana dalkaasi u safraya saacadaha soo aadan xogaha in ka helna ayaa sheegaya in booqashada Xasan Sheekh Maxamuud ee dalka Turkiga qaadan doonto muddo 3 cisho isla markaana madaxda dalkaasi uu la gali doono heshiisyo dhowr ah wafdiga madaxweynaha marka ay tagaan Turkiga Xasan Sheekh Maxamuud waxay la kulmi doonaa Erdogan isagoo kadibna la kulmi doona jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka iyo mas'uuliyiinta dawladdaasi sidoo kale intuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku sugan yahay Turkiga ayaa la qorsheenayaa inuu la kulmo hay'adaha samafalka ee Turkiga si caawimaad ugu raadiyo dadka Soomaaliyeed ee xilligan abaaruhu saameeyeen waa safarkii labaad oo madaxweynaha dalka kaga aanbabaxaya tan iyo markii loo doortay 15 May madaxtinimada Soomaaliya Recep Tayyip Erdogan oo casuumaadan u fuliyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la ogaaday inuu heshiisyo cusub uu la galayo Soomaaliya oo ay ka mid tahay inuu Soomaaliya ka howlgala bangiga Siraad oo ah bangiga ay leedahay dawladdaasi Turkiga waxa uu Soomaaliya ka howlgalaya mashaariic dhowr ah waxa jira xarumo ay leeyihiin oo ka shaqeeya Muqdisho gobolada qaar kuwaas oo dawladdaasi dhaqaale badan ay kaga soo xarooto sidoo kale Soomaaliya fursad weyn u ah oo mashaariic ay ka heshay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arrimo dhowr ah kala hadli doona dhigiisa dawladdaasi oo Soomaaliya xiriir wanaagsan oo kala dhaxeeyo waxaa la rajeynayaa sidoo kale inay kulamada wafdiga madaxweynaha ay badiyaan muddada halkaas ay ku sugan yihiin la hadlaan madaxda kala duwan ee dawladdaas sidoo kale la kulmaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hore kaga dhawaajiyay inuu la imaan doono qorshe hortamin u leh lagu hogaamiyo dawladda lagu adeega shacabka Soomaaliyeed iyadoo lala jaan qaadayo dunida cusub dhammaan dawladaha beesha caalamka iyo saaxiibada taageera Soomaaliya hal mowqif oo ah soo dhaweyn ay ku wajihi doonaan waxaa jiray 5 sano oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hogaaminaya dalka dawladda si weyn u qabay tabasho weyn xiriirka Soomaaliya kala dhaxeeya diblomaasiyadeed oo xamaaday balse madaxweynaha ayaa la filayaa inuu isbedel weyn ku sameeyo arrintaasi haddaba wuxuu ku soo koray safarka madaxweyne Xasan Sheekh ee dalka Turkiga halkan ayaa idinkugu soo gudbin doonaa wafdiga madaxweynaha iyo isaga ayaana la filayaa in saacadaha soo aadan ay ka duulaan magaalada Muqdisho caasimadda dalka iyagoo booqan doono dalkaasi Turkiga inta ayaan ku soo gabagabeynaa saaxiibayaal tabintan gaarka ee kala socoteen Somali Life Media muuqaalka sheer garay saaxiibadada kala gaarsi